howlgal weyn oo ka socdo aan baladweynaha saaka ka soo ambabaxnay anagoo ka kooban ciidamada dawladda militariga dawladda Soomaaliya qaybihiisa kala duwan iyo ciidamada daraawiishta ciidamadii hore macawisleyda ahaan jiray hadda daraawiishta laga dhigay hoostaga Hiiraan State oo madaxweynaha ka yahay Cali Jeyte maadaama bariyahan khilaaf siyaasadeed uu ku jiray gobolkii gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaa moodaa in macawisleyda inta badan ama hadda ciidankan daraawiishta loo bedelay ay ku soo wada xaroodeen magaaladii khilaafka siyaasadeed taasoo sababtay shabaabkii inay jaanis ay helaan dhanka buulo burtan inay webiga ka soo gudbaan beere yabaal iyo jicibo dhulkaas halkaas ay tagaan dhinacaan inay ka soo gudbeen webiga beer xaani iyo dhulkaan ay maraan ay rabaan inay uga fuustaan dhulka adduunka inay uga fuustaan runtii maanta waa ka soo gaarnay dagaal weyn halkan ka dhacay Allah caafiyo wiilashii dhaawacmay runtii anaga dhinacayna qasaaraha jiray qasaar ma dhigi karna Allah caafimaad si wiilal 5 dhalinyaro ah ciidamada kamid ciidamadii aan nala socday kamid halkaas ku dhaawacmay sidoo kale dagaalka halkaasna hadda asna soo gabagaboobay runtii cadawgu maanta si fiican jab loo gaarsiiyay waxa lagu celiyay goobihiisii waxa lagu celiyay webiga lagu celiyay waxaan rabnaa marka inaan digtoonahay runtii wixii hadda ka dambeeyay inaan ilaalino sababtoo ah wixii la soo qabtay muddo sanad ku dhawaad dhulkii la hayay hal bacad lagu lasayna noqdaan ma rabno annagu xildhibaan ahaan iyo mas'uuliyiinteena kaliya odayaasheena dhaqankii dhamaanteen waxaan rabnaa inuuna mashquulinin khilaafka siyaasadeed taasna aan gacanta ku hayno tan shabaabkan aan dadkeena ka ilaalino cadawgu waa dhagar badan yahay howlgalkiina waxaan rabaa in dawladana ugu baaqayaa runtii howlgalkii wajiga labaad oo aad u daahay in la soo dedejiyo hadii kale shabaabku waa in la weeraro hadaan la weerarin waxay sameynayaan ayaga weerar noqonaya maanta u jeedaa meelihii laga joogi jiro laga nabadooneeyo laga raacdeeyo laga nabadooneeyo nabadda ahay maanta ay ku soo noqdeen haddana maanta dagaalo hor lahan ku galnay dagaalo hor laho waaweyn aan ku galnay طبعا marka waxa la rabaa in dawladda waxaan ka codsanaynaa dagaalka inay soo dedejiso shabaab waa cadawguna sidiisaba meeshiisina loogu tago waay marka waxaan bogaadinayaa ciidamada isgarabsanayo ee deegaanka iyo kuwa ciidamada Hiiraan State iyo ciidamada dawladda federaalka ee militariga Soomaaliya oo runtii aad isku kaashanaya mar walbana garab isku waxaan ku amaanayaa ciidamada ku sugan mar walba gobolkan inay ku dhiiran sargaal kamid ciidamada maanta la sheekaysanaa wuxuu yiri weerar aan qaadnay oo ku guul dareysan wali ma dhicin inta dagaalada socdeen waa geesiye naftoodu huray ka duwan meelaha kale ciidamada ku suman yihiin mar walbana waa ka guuleystaan insha Allah waxaan rabnaa wax walba waxa ka daran cadawga qawaarijta ka daran shabaab ka daran wax walba waa waqti dib u dhac inaga mar walba lagu sameeyay marka waxaan rabnaa in la foojignaado aan abaabulno dadkeena sidii aan waagi hore u abaabulno kaleeto aan ka difaacno dhulkeena nabadda noo ah in rabnaa ka difaacno. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.